بسم الله الحمد لله والثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد. إلهي ما أسكال تبارك وتعالى أولا وآخرا وظاهرا وباطنا ودنيا وآخرة. إلهي من أمهد علينا تبارك وتعالى. بعد ذلك waxaan u mahadcelinaynaa mashaayikda meelaha kala gedisan inooga yimid dhulka fog masaafaadka iyo kiiloomitiraadka faraha badan soo gooyay inay inoo faa'iideeyaan mu'tamarkan ka qayb galaan wadamada kala gedisan uga yimid culimadeennii ah waxaan leenahay soo dhowaada Nairobi ku soo dhowaada. إلهي وحن ويديننا تبارك وتعالى إنه سفر كي سوق قلن السعودال كي سوق قلن يدلال كي بحنا يعني انتبه إنه إلهي ميزانك حسنات كوقليه علمي إنه فايدين يعني يوحي إنه شيء يعني إلهي إنه وأنفعه أيام ويدي سنينا وحكى له صور ويننا إنه هلية أنبيجنا يوسف حسن ورنتي goobaha khayrka iyo dacwada inta badan inagala qayb gala isagana waxaan leenahay soo dhawow jazakumullahu khayran. waxaa kale runtii mudan inaan u mahadceliyo muasasada mu'tamarkan qabatay muasasada ansaari sunna oo ka mid ah muasasaadka magaalada Nairobi dadaalka tacliinta iyo dacwada ka wada kamida Sheekh Jafjiir baa hadda sharxay qaybaheeda kala duwan iyo waxay qabato iyo meesha ka soo bilaabatay dadaalka uga mahadcelinaynaa iyagana waxaan leenahay ilaahay miisaanka xasanaadka ha idin saaro hana idinka aqbalo dadaalka aad bixinaysaan. inta kadib waxaan u malaynayaa hadalka la iguma hormarinin inaan dadka meesha fadhiya u weyna oo haddii wadaadada uu doctorku u yaryahay anigana doctorkan ka sii yarahay doctor cali jaamacaddan isugu tagnay jaamacatul madiina laba sano iga horreeyay marka ninkaasi inaan ka yarahay soo muuqato marka ka yarahay macallinna wuu ii ahaayo meelaha qaarkood macallin buu igu ahaa marka macallin iyo ardayna mar walba ardaygaa yar sida badan marka macnaheedu maaha in laysoo hormariyey inaan garhka cas arkina rag baa farsameeyey laakiin anugu ma farsameeyo allah idin barakeeyo. safar baan runtii u bixi rabaa oo safarkaaba baan aadaya saasaa marka la iisoo hormariyey anaa codsaday laakiin waxay ahayd in culimada martida aan lasoo hormariyo annagana aan un ducayno maadaama ay marti noo yihiin. almuhim walaalayaal jazaakum allahu khayran allah idin barakeeyo. xuduurka iyo kasoo qaybgalka rag iyo dumarba runtii aad iyo aad baad ugu mahadsantihiin iyadoo weliba saaka roob da'ayay in aad soo buuxisaan waxay tilmaamaysaa xiisaha aad u qabtaan runtii khayrka iyo culimadiina inaad la kulantaan inaad ka faa'iidaysataan inaad aragtaan dad la arko oo laga faa'iidaysto loo yimaado dadkii u fiicnaa waaye waxay wadaan waa ilaahay kelimadiisii waa qur-aankii waa sunnadii waa wacdigii khayrka dhankiisay inoo wadaan marka jazaahum allahu khayran baan leeyahay mar kale innaga waxayna la gudboon inaan juhdiga iyo dadaalkaas uusan meel cidlaa dhicin marka laynoo sheegayana inaan u dhag raaricinno oo si deganaanshihi xasillooni ku jiro u dhagaysanno markii aan dhagaysanno oon fahanana inaan dhaqan u beddelno oo cilmiga aan maqlayno aynu nolosheenna wax ka beddelno
حيل الروح هذا علمي فايديستو علمي قاسنا ونولشي سوحبك بدلي وايو فوقان شو كردية إنه إلهي قسي فوقان dadka aakhiro cadaabka loogu hormarin doonana waxa kamida nin culimo ah marka cilmigu waa wasiila waa dariiq loo maro amalka marka waa inaynu isku dayno wixii culimada aan ka maqalo inaan insha Allah ta'ala u bedelo amal iyo inay nolosheena wax ka bedelo insha Allah ta'ala wax kororsano wax faa'iideysano wixii aan qaadanana insha Allah ta'ala guriyaheena iyo nolosheena iyo ganacsigeena ina wax kaga bedelo biidilaahi tabaaraka wa ta'ala intaas inagana in la gudboon waana inta ugu yar oo dadaalka culimadu ay bixiyeen aan runtii kaga abaalgudi karno waay dadaalkaas abaalgudka ugu weyn waxaan abaalgudka ugu yar inuu bixin karno waxa weeyaan inaan ka faa'iideysano cilmiga ay gudbinayaan kadibna aan ku amal falno intaas iyagana wax weyn u ah ilaahay agtiisa tabaaraka wa ta'ala hadalkeena ku sii dheeraado mar rabo wax badan oo idin sheegana ma jiro inagu reer Nairobi baan isla nahay warka intiisa badan culimada martida abu la jira inagu waa isku badbadanay waana isku badbadan doonaa insha Allah ta'ala waxaan rajaynayaa ma aqaano sacabka mu'tamaraadka laguma aqoon jirin marka malaha shacab saqjiir ba qiilo hayaan u malaynayaa masalada iyada laga yaabo waagii hore waxyaalo fara badan oo go'aan baa jiri jiray oo aan muxuu ahay la diidi jiray laakiin waayaha dambe waxoogaa waxa inagu dhacay wax badan oo la fududeeyay marka qaybahaas qiilka loo helay inay ku jirto anigu ma aqaanay waxaan dhihi lahaa sacabka waxa ka fiican hatta haduu banaan yahay waxa ka fiican takbiirta ka fiican oo ka sugan nabiga sallallahu alayhi wasallam iyo saxaabadiisa markay shay istixsaasanaad ama u bogaan Allahu akbar bay dhihi jireen Allahu akbar marka taas fiican taana insha Allah ta'ala waa mulahado aan baraarujinay biidnaahi tabaaraka wa ta'ala waxaan leeyahay marka la soo dhawaado Allah idin barakeeyo jazaakumullahu khayr aniga waa idin ka tagayaa inaan joogo oo mu'tamarkay muhaadaraadkiisa ka qayb qaatana waan jeclaa laakiin waxoogaa safar yar baa igu jirta ducadana iga soo daba tuura insha Allah ta'ala idinkuna waa ducaysantihiin Allah idin barakeeyo you are welcome insha Allah ta'ala Abdurrahman soo inta igu galfay oo ku dara sooxirigii walaawa kariimuni wote marka intaana waa fariintii Sheekh Abdurrahman oo iska reebayo jazakumullahu khayr wa salaamu alaykum